أحمد عبد كاري مدحوينها goboleedka galmudug ayaa xariga ka jaray xarunta karantiilka dadka qaba caabuqa corona ee degmada Cadaado xaruntan oo si heer sare ah loo qalabeeyay loona dhameystiray qalabka aasaasiga ah ee koortaga caabuqa corona ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor waxa uu qayb iyo qolqolba u dul istaagay qaybaha ee xaruntan ka kooban tahay waxaana qalabaynta xaruntan qayb weyn ka qaatay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo bulshada reer galmudug oo si isxilqaan u istaagay madaxweynaha oo ay weheliyeen wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay bogaadiyeen cid kasta oo qayb ka qaadatay qalabaynta xaruntan agaasimaha isbitaalka Cadaado Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaari ayaa madaxda dowlad goboleedka galmudug ka codsaday in laga garab siiyo sidii ay xaruntan u sii shaqayn lahayd madaxweyne meeshaan maantay si official nagu furtay waxaan dhammaan ogeysiinaa deegaanada galmudug gaar ahaan Cadaado in xarunta COVID-19 maanta ay noo furan tahay qof kasta iska shakiyo qof kasta calaamadaha COVID-19 isku arka in adeeg fuul ah oo dhameystiran oo maanta Cadaado hospital oo hayo dadkuna ay yimaadaan dhaqaatiirtii shaqaalihii mashiinadii intuu ay dhameystiran yahaan bulshada reer Cadaado iyo bulshooyinka galmudug maanta wixii ka dambeeya hawshu waa u dhameystirta COVID-19 waxaan ka codsanaynaa madaxweyne maanta waa furnay waxay u baahan tahay maintenance waxay u baahan tahay sablay joogta waxay u baahan tahay shaqaalaha wixii lagu socodsiin lahaa meeshan Facebook-kooda waa noo dhamaaday madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa mahadcelin kadib sheegay in maamulkiisu uu dadaal kasta ku bixinayo badbaadada shacabka reer galmudug gudaantaasaan leenahay waxaana kuma filla inta la helay iyo inta hadda la hayo baahidii oo dhameystiran ma aha waxaase la yimid meel fiican oo laga soo gurman karo guud ahaan isbitaalada iyo goobaha caafimaadka galmudug oo dhan baan u rabnaa haddii la yidhaahdo in sidii hore loogu diyaargaroobay si ka sarraysa loo diyaargaroobo oo la wada diyaariyo waxaanan u diraynaa howlwadeenno iyo dhaqaatiir iyo mas-uuliyiin sidaan oo kale iyo sidii wax ka sii fiican oo la heli karo u diyaariyo insha Allah dadkuna ha isku tashadeen hana dadaaleen dhammaan jaariyadaha iyo community-ga reer galmudug waxaan leeyahay hawsha meeshiina ka soo wada baahida xanuunkan ee hadda galmudug ka jirta mid ay dabooli karto galmudug ama gacanta laga helo dawladda farka ku filan tahay ma aha qaybtiina ka qaata u soo gurmada gacan ka geysta Cabdirasaaq Al-Cadaala warbaahinta goobjoog magaalada Cadaado